بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دبديد ساكا waxaan jeclaystay inaan wax yar oo kooban ka ilaahdo wadciga maanta aynu ku jiro. alxamdulillaah intaan ka warayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa nabad. alxamdulillaah abaartii baanayd ee jirtay ee in haysay muddada dhowr sanadooda ilaahay way naga soo jabiyay. wax dhiila oo dalka jiraana ma jiro. waxaan doonayaa inaan kelmado kooban ka ilaahdo wadciga maanta aynu marayno iyo muddadii xilka uu hayay madaxweynaha maanta xilka hayaa hawlihii ama dhacdooyinkii koobnaa ee ka dhacay dalka qaar ka mid ah inaan carab ku dhufto tala bixinna ka jeediyo waxay la tahay hawlaheena mustaqbalka. dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu ku caanamaalay wada tashi is-afgarad oo aynu dhibaatooyin badan oo aynu soo maray kaga baxnay. waxaynu ku caanamaalnay muddooyinkii dambe dastuur qaran oo aynu samaysanay oo sanadkii 2000 shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland u codeeyay kuna aqbalay boqolkiiba 97. intii dastuurka aynu ku dhaqannay waxaynu ka baxnay waxyaabo fara badan oo muramo ah oo dadku isku qabqabsado had iyo goor oo ay ka mid tahay qaabka dimuqraadiyadda ah aynu doorashadeena u qabsanno, qaabka aynu xilka ula kala wareegno ee hufan, qaabka maalinka maanta ah muddaxileedyada ina soo mara haddii ay waqtigii loogu talagalay doorashooyinku ku qabsoomi waayaan loo xallilayo oo dastuurkeenu sheegay ayaynu soo maray. doorashadii 2017 ee uu ku guuleystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka bacdi waxay nagu soo kordhay waxyaabo aan caado inoo ahaan jirin oo ay ka mid tahay shirbeeleedyo isqabqabsi iyo jabhado la sameeyo. intaasuba waxay dhaceen tartankii doorashadii ka bacdi markii la kala helay oo aynu filaynay sidii la isugu haniyeeyay inay 5 sanadood ku dhamaadaan. 5 sanadood waxay ku dhamaadeen buuq iyo xasarad iyo isqabqabsi iyo muramo aan loo baahnayn. muramada iyo isqabqabsigana waxa waday labada xisbi mucaarid. kolley anigu doorashada hore waxaan u codeeyay ama aan taageersanaa xisbiga wadani musharaxiisa. markii doorashadu dhacday ee la haniyeeyay ka bacdi iyadoo caadifadii ay jirto doorashadu shir baa lagu qabtay buurta la yiraahdo Gacan Libaax. shirka shacabkii isugu tagay ee taageerayaasha u ahaa xisbiga wadani wuu ku kala qaybsamay qayb cunfi waday iyo waxaan waxba tarayn xisbiga iyo qayb waday wanaag iyo dadka inaynu beer la xawsano oo u yeedhano oo isu nimaadno. natiijo hagaagsan oo ka soo baxday sida reer Soomaaliland wada ogyihiin may jirin. waa lagu kala qaybsamay. waxa jirtay ayadana dagaaladii ka jiray ceelf weyn iyo aagiisa inay kalifeen ama ay keeneen
inay jabhada baxaan oo ayaguna buuraha galaan muddaxileedkii madaxweynaha maanta ayay mashaakilkaas soo dhimi jireen waxaa lagu xalilay intaba nabadgelyo iyo maalinkan maanta kharash iyo hawl badan iyo waqti badan oo inaga lumay baa lagu xalilay haddii dagaaladii sokeeyaha tahay iyo hadday tahay jabhadii baxayba marka halkaa kabacdi waxaa looga gudbay oo kolley aan xisbigaa marka aan ka tirsanaa aanu ku tashanay in haddii doorashadii madaxtooyadana dhaaftay doorashada lookalka iyo tabarlamaanka sidii aynu ugu adkaan lahayn faligeed la qabto oo dhaqso loo galo taana khilaaf baa ka yimi hoggaankii xisbiga una uu ku kala qaybsamay waxaa lagu kala qaybsamaynaa in muran madhalaysa la sameeyo odhanaya commissionkii hore doorashadii madaxtooyada qabtay ha la bedelo haddii kale doorasho geli mayno 2 sannadood baa murankaasi qaatay 2 sannadood waxay khasaare ku ahaayeen xisbiyadii mucaaridka ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna waxay intaa riixayeen in doorashada la qabto waanay ku guuleysteen aakhirkii doorasho isa saaran baa la qabtay xisbiyadii carqaladeynaya mucaaridka ahaa ayaana inta badan ku guuleystay halkaa marka la dhaafo ee aanu soo noqdo maanta sanadkan ama marxaladan cusub waxa dhacay shir kale oo ka dhacay magaalada Burco bishiina dhaaftay 25keedii shirkaas iyo shirkii horeba dadka inta wax garadkii may jeclaysan sababtoo ah shirka hore gacan libaaxna iyadoo doorasho laga soo baxay oo dadku caadifadaysan yahay baa la qabtay dadkana lama ururiyo marka uu kacsan yahay ama caadifadaysan yahay shirkan dambana sidoo kale ayuu ahaayo iyadoo murankii taagan yahay ururada iyo maalinkan maanta axsaabta ee doorashadii madaxtooyada iyo doorashadii ururada isku soo beegmay ayaa la qabtay haddii la qabtay arrintaa dawladdu si fiican bay ka yeeshay siday ka yeeshayna xogteeda waa wada haysaan wax carqaladoo shirkaa lagu sameeyey ama is-hortaagii xukuumadda ku samaysay may jirin bilcaks wixii tashiilaadee loo samayn karayay waa loo sameeyey anigu waxaan ahaa raggii hawshaa aada uga shaqeeyey raggii shirka waday ama qabanqaabadii guddidii qabanqaabada ama odayaashii wadayna way ka warhayaan waxaanu ku guulaysanay inaan isku dhac xukuumadda iyo shirkaa ay qabsadeen mucaaridka taageerayaasha beesha garxajis mucaaridku ay qabsadeen inaan iyo xukuumaddu isku dhicin shirkaana kolley qodobo aan ku habboonayn jamhuuriyadda Somaliland oon dhaqan hore u ahayn oo kala sheegasho dhul ah oo deegaamaysan oo ka kala faquuqaya reer Somaliland ayaa ka soo baxay waxaan soo ogahay xogogaal oo ahay waxgaradka iyo waayeelka badidiisu caadifadii dadkii caadifadaysnaa meesha tagay wixii ay wateen ee ahaa dagaal iyo arbush inaanay yeelin itaalkooda laakiin qodobo kulli la qoonsadaa waa ku jireen haddii shirkaa laga soo baxay odayaashii iyo salaadiintii iyo waxgaradkii in badan aan iska aragnay waxay aniga igu booriyeen ama igu kalifeen in la wada hadlo oo mucaaridka iyo ay wada hadlaan xukuumaddu aniguna dadaal badan waxaan u galay sidii xukuumadda iyo mucaaridku la isugu iman lahaa gole lagu wada hadli lahaa arrintaa ayada ah muddaanu hawsheeda ku jiray intaanan ka bixin horta fadqalooyinka iyo dhibaatada aan soo maray waxaan la soo maray dalku soo maray muddaxileedka madaxweynaha waxa ka kordhay cadaawad iyo kala qaybsanaan
أي شعب الصومالي كل دي وقبيلة ديسن وأحزاب معارض كها هجانا دودو أما مشرحين تودو أما قدومياش دودو سبب وهايان إن عقدت جليان غيب كم ده شعب كي الصومالي لأن تاجر سنة سيبه بيلوه دي أرنتا أيضا waxay keentay inay isu geliso dadka cudur waxana xaraan hoggaanka ama madaxda ka xaraana shacabka taageersan iyo shucuubta kale ka soo horjeeda ama taageersan madaxda kale inay xumaan u kala sheegaan ama cadaawad isu geliyaan tiiba maanta Soomaaliland ka dhacday oo ka muuqata taageerayaasha beelaysan ee beeshooda حزبية معارضة وحال كاتشرته نيكا كنت لقرا إنه ضل حكمه أما مدحوينه كان نقضه هدي أنا كنت لقلين ضدك يوجه الرجال واحترامه هدي كان سكوب السياسة وقت كيسلم احترامه نو البوح الدكتور أما الدكتور بقوي له عربت واحد هذا كما تدين وتدان سيدا أدو ما دولة معامشة ولا معاملة يا مركا تاسين نقطي وحاد بتمد مذكر بنته مدحوينه جمهورية الصوماليلاند وكنت مشي صفة شرعية إن بوق يغيره لقى سميي وحلياب لا ما يسويدين له ودتك أنت فيه بيسويدين يسال شرعي جينا يدستور كان أيها ينافس حي وإنه هرو وقد غني هدي دور شدو قبسومي ويدو إن عندكم فاكيوم قلين أما عدلنا قانين كرسيبو هل كان لوجو قد بياعي تهاي إن قيمة يسوه كوميشن كدور شوينك ونقد بيسوه هيدا كل شغالة أما قراء كل شغالة قراء قورتي ده قراء سنة مدكورين وسمايه ويصاد عضي وحلو سمايه مدحوينه إني دينتي رايون حريستي محمد حجر عقال وحلو سمايه داهر ريالك هنا وهذا النول وحلو سمايه سيناي وحياة عد كبوغضي يعد كقيلسيتون ما شرتو وحيس ويدين له أيضا إسلا قورتي ده ما أنت فردها كردين يسمى دوينك أيضا إسلا قضب قرآن شرعي أرتكل قرآن شرعي ودستور كوي على وده استعماله محاكم بدلا تن لو غيرين يا كورن لو غيرين واحد وحلياب له إن يكون سببيان ما تحت حزبية ده سيبه فيصل على وراه شركة هذه بي زي ده إنه ليه حزبية ده قرن كأن الله تشهد هذا لأنكم مدكرين ده كقريب الله meel aliyaalan meel ay distoorka kaga qoran tahay xisbi awood u leh inuu muddo kordhiyo mayno arag bilcaks cidii awoodda u lahayd ayuu nimaan awood u lahayn ayuu anjarafaynayaa ama ka sheegayaa dib golaha guurtidu ee fadhiya dalka kuraasada ku fadhiya maanta wax aliyaala wax dambi ay ku leeyihiin ma jiro muddo dhaafkooda haddii halkaa dambi كتشرو وحوي قرياش شرعي دجنته وكيلو دوغو الريان حكومة دون كتشرتو حكومة دي يسبدلي أيان وديار حيركي أما شرعي لغو دوران لها تانا نول بو اوغي marka eedo ayaga ma lahayd dawladii isbedelay iyo barlamaanadii isbedelay baa la eedaana waxay u xalaal tahay muddo kordhintaas siday xalaal u ahayd tii cigaal siday xalaal u ahayd tii riyaale siday xalaal u ahayd tii siilaanyo wax bedelayaana ma jiro waxaanay ku dhamaanaysaa November 2024 nin diiday iyo nin yeelaba waxa kale oo la yaab leh xukuumadda maanta jirtay madaxweyne Musabbixi uu ka yahay madaxweynaha waxa ay go'aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go'aamisay inay muddada farsamo ee komishanka qaranku soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii
waxay markii ugu horeysay madaxweyne muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd xisbiyada mucaaradkiina markii hore way aqbaleen haddana way diideen bayaankoodii ugu dambeeyay waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta aanay ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha ayagoo hadal iska hor imanaya loo haddana oo leeyahay 9 bilood baan ogolay Soomaalidu waxay tiraa afxumo nabadna waa ka kaxaysaa colaadna waxba kaaga ma tarto yay ka ciideynayaan ma ninka soo socda wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa ninkii aqli wuxuu garanayaa ninka soo socda haddaanu ka quusanin wixii uu rabay asaga ayaa iska ciideynaya wixii uu doonayay wuxuu iskaga ciideynayaa dad qaabkii iyo doorashadii la waday ee dhaqaalaheedii la diyaariyay ee la isla qaatay ilaa komishankii doorashooyinka markuu diiday waa dooni maayo madaxweyne inaan noqdo dooni maayo inaan doorasho galo ayay macnaheedu noqonaysaa ninka diiday muddo kordhinta xalaasha ah ee yidhi xukuumad iyo madaxweyne ma jiro macnihiisu waxa weeye nin diidan Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo horjeestay oo sharciga iyo dastuurkiiba ka baxay oo khilaafay halka ayada ah xisbiyada mucaaradka ah hoos bay ugu dhaceen waxaana la yaab leh oo aan aqli gal ahayn inay mar walba ku andacoodaan ilaa beesha caalamka oo ay yiraahdaan madaxweynuhu na arki waayay anigu waxaan ku jiray raggii ka shaqeynayay sidii loo fududeyn lahaa is aragga madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka cali waran cadde oo alla taliya madaxweynaha xilal badan qarankan ka soo qabtay nin odayo muxtarimana ah ayaa hawsha inta badan u xil saaraa siiba marka xaggooda fariimaan la geynayo rag kale oo ku taageerayna waa jiraan oo maayarka caasimadu ka mid yahay iyo duur hawshii ugu dambeysay ay soo codsadeen markii madaxweynuhu arbacadan maanta qabtay ballanta waxay codsadeen in laga soo dhaweeyo oo aan arbacada lagu simin axadii bay ahayd marka ay codsanayaan madaxweynaha fariintii waa u timi waanu kala hawl galnay ilaa madaxweyne ku xigeen ilaa golo wasiiro intii isashay madaxweynuhu wuxuu aqbalay ayadoo axadii ah habeenimada axadda la joogo subaxa isniinka 10 subaxnimo in uu la kulmo wadahadalkan halka ka bilaabo fariinta cali warcada loo dhiibay ama qaaday oo fariinta markii hore la soo faray waa arkayseen cali warcada wixii qabsaday ee aan laaqigiisa ahayn ee laaqi oday ahayn oday qaran ahayn ee laaqi mas'uul wanaag ka shaqeynaya ahayn waxay qabsaday waxa weeye waxay u og yihiin madaxda axsaabta mucaaradka qayradaas ay u og yihiin taladooda sidaas ah ninka kari waayay xaafadooda intii kala socotay inuu controlo ama dejiyo ama wuxuu sheego qaran sidii uu hogaaminayo ama ugu hungurooday aanu garan maayo waa dhacdadii ka dhacday xabaalaha ee aniga igu dhacday tullamidaba cali warcadana ku dhacday dadka aynu ka sugayno inay qaran hogaamiyaan waxa weeyaan dadka sidaa u dhaqmaya taa anigu aan waday maalintaana waxay ahayd caruurtii ay soo dagaalgeliyeen ay dhahay xabadda laabta u dhiga markii ay dhinteen ay ka yaaceen waaniga hore u sheegay oo muddadii ay ku jireen talaajadaha ay kaga yaaceen anigu baa hawshooda wado ka shaqeynayay talaajadina ka soo saaray ambalaasyadana soo saaray xabaalahana keenay abaalkeeduna wuxuu noqday shiidka waxa ilaahay mahadiya taana inaanay wax maalinkan maanta oo dhib oo ka dhacay sidii la damcay oo dhaawac iyo dhimasho dambiina may dhicin maantana maadaama aan ogahay dadka maatada ah ee aan ka dhashay hogaankoodu inuu sidaa yahay oo gidaar walba jiirsiinayo uguma calool xumid dadka laakiin waxaan ogahay in hoggaan xumo jirto markay hoggaan xumo dhacdana dadku tiibu galaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkaygan kooban maanta shacabka reer Soomaaliland
waxaan ugu baaqayaa midnimo iyo iskaashi waxaan ugu baaqayaa shacbiga reer Soomaaliland ninka khaldan Soomaalidu waxay oran jirtay ninkii waalan tolkiiba u miyir qabee inta kale ka badan ee la yaabane inaanay ka aamusnaanay runta u sheegto oo khaladkooda u sheegto in midnimadii iyo walaaltinimadii aanay meesha ka bixin oo qabyaalad iyo cunfi iyo isku dir iyo reer hebel baan waxba idin ogolayn oo ay galiyeen hogaamiyaasha mucaaridku tolkood inaanay waxba ugu qaadine ayagu ay ka roonaadeen ay yiraahdaan tolkayo maxaa u baahan tihiin taladu way idinka khaldan tahay ee aanay midi ku taagiyo iska horkeen shacab noqon waxaan ugu baaqayaa ayagana hogaamiyaasha mucaaradka khaldamay khaladkoodii inay ka soo noqdaan wada hadalladii ay doonayeen ee ka soo baxay go'aankeedu shirka burco ayaguna ay ku hadladeen in la is arko ayaga albaabada u xidhay si nacasnimo ah bay albaabada ugu xidheen oo aanay ayaga laftoodu garanayn wax kalifay ciday ku raali gelinayna garan maayo dibad iyo gudo haddaanay gacan ajnabi nagu jirin waxaan odhan lahaa wada hadallada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wada hadal ma diidin albaabkiisuna ma xidhmin maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii Soomaaliland iyo jiritaankiisii markaad dafirteen inay dalkan Soomaaliland madaxweyne iyo xukuumad leeyahay markaa ku tala gasheen sidii habeenkii dhaweyd burca ka dhacday in la isboobo oo la isdilo oo ninba nin wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka fawdo gelisaan taa ka soo noqda ka istaghfirulaysta waxa tiraahdaan arrintaa waanu ka soo noqonnay dalka Soomaaliland waa jirtaa dastuurkiisu waa jiraa madaxweynihiisu way jirtaa xukuumaddiisu way jirtaa dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wada hadal laakiin kuma abuuri karo dawladdi ma jirto xukuumaddi ma jirto Soomaaliland ma jirto haddana la wada hadlo oo wax aan aqli gal ahayn gabagabadii hadalkayga waxaan kaga baxayaa sida aan horeba u sheegay waxa inoo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an inay sugto ammaanka dalka waana sugan yahay waxa ka go'an inay diyaariso wax la yaala wixii kaga beegnaa doorashada waanay diyaarisay waanay ka hadashay waxa ka go'an commissionka qaranka ee doorashooyinka inay la shaqeyso oo wax la yaala wixii timeline ama shuruudo ah ee doorashooyin ku qabsoomayaan ay hirgeliso inta ninka diidani doorasho dooni maayo fawdu doonaya Soomaaliland meel ha ugu soo jeesto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته